qof meesha maraya ayuu iska dhigayaa, waa isboojeenaya, cunuga yarka ayuu rabaa in uu qaato xado, waa kana waa soo laabanaya, cunuga yarka ayuu u yeeri rabaa. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, barnaamijka waxaad ku daawan doontaan CC-da oo duubtay muuqaal muujinaya cunug yar oo la xadayo. ilmaha la xadaa, ilmaha keli lagala baxaa, ilmaha xubnahooda la iibsadaa. Soomaaliya waxay ka ahaa jirtay wax caruurta lagu cabsiyo, laakiin hadda waxayba noqotaba dhab. sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan nimankii maalin walba u soo shaqo tagi jiray, u soo kalahi jiray si ay caruur Soomaaliyeed u xadaan, isla markaasina uga badashaan lacag yar. Afgooye ayaa lagu qabtay. xogtooda iyo waxyaabihii ay sheegeen markii la wareystay ayaan barnaamijka ku baahi doonaa. saaxiibayaal, Alpha Media Group ayaad naga daawanaysaan. haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro, gambaleelka ha hilmaamin si aad uga mid noqoto daawadayaasha ku xiran Alpha Media Group. fadlan barnaamijka la garay si aad uga qayb qaadato socodka barnaamijka. aynu marka hore ku hormarno maamada 7 caruurta ah dhashay oo nolol iyo geeri midna lagu waayay. 4 bilood ka hor ayaa nolol iyo geeri midna lagu waayay, balse daqiiqadii ugu dambeysay fariin ayay walaashid u soo dirtay iyada oo aad u walwalsan. waa sheekada Faadumo Aadan Cabdulla oo ah hooyo 7 caruur ah dhashay ee uu ninkeedu ku furay la daalaadhaceysay korintooda. waxay timid Muqdisho inta lagu guda jiray sanadkan 2020 dhexdiisa, waxayna ka timid gobolada dhexe ee Soomaaliya. nolol iyo shaqo ayay soo doonatay, waxayna shaqo ka heshay mid ka mid ah hospitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. xirfadda nadaafadda ayayna ku shaqaynaysay. 2 qof ayaa shirqooshay oo rag iyo dumar kala ah, ehel ahaanna ay isxigeen Faadumo sida aan ku helnay xogta. muddo kooban ayaa lacag waali ah la siinayay bishii ugu yaraan $700. 3 jeer ayay gashay xarunta Xalane iyada oo markaasi loo geenayay marba qolo gooni ah oo ay la kulanto. dhowr jeer ayay qoyskeedu weydiiyeen dadka ay wax kala dhaxeeyaan, balse iyadu kuma dhiiran in ay sheegto waxa kala dhaxeeya iyo sababta ay u aado xaruntaasi oo ah meel aan qof walba geli karin. ugu dambeyn waxaa lagu qanciyay iyada iyo ilmaheeda in loo wadi doono qaaradda Yurub maadaama nolol adag ay ku jiraan. waditaankaasna waxaa soo dhameeyay 2 qof ee wadaday qorshaha shirqoolka. habeenkii ayay hooyadeed wacday ilmihii in loo soo dhiibo ayay ka wada hadleen. kadib ayaa telefoon laga soo wacay, banaanka ayay u baxday, gabi ahaanteedna waa la waayay wixii waqtigaas ka dambeeyay. fariin ayay soo dirtay iyada oo sheegtay in ay mooto saaran tahay, isla markaasina rag hub wata ay afduubteen. reerka gabadhu waxay hadda ku walaacsan yihiin oo ay kala saari laayihiin in gabadhoodu ay arrin kale haysato ama meel lagu haysto ama mar horeba xubnaheeda lagala baxay oo la iibsaday. dhacdadii kale oo argagaxa iyo naxadinta lahayd ee Muqdisho ka dhacday asbuucyadii la soo dhaafay waxay ahayd Sihaam. muuqaal ahaan iyada oo bad qabta ayaa la helay, balse maskax ahaan maxaa isbedelay? Sihaam waxay sheegtay in Saybiyaano iyada oo joogta fahamka iyo miirqabka ugu dambeysay, kadibna iyada oo dabaq xamar weyne saaran ay is aragtay, ayna ku soo baraarugtay iyada oo saaran dabaq xamar weyne ku yaala. maxaa isbedelay maskax ahaan iyo faham ahaan kadib markii loo adeegsaday waxyaabaha maanka duuriya? waxay sheegtay in dabaqa lagu haayay ay ka fakatay, kadibna iyada oo joogta Liido ay qoys kale oo meesha joogay ay wateen, xaafadoodana ay u wateen oo Daynila ku taalay. qof dumar ah oo gacanta ku hayay ayaa lambarka hooyadeed ka heshay Facebook oo lagu baafinayay. kadib sidaas ayaa waalidiinteeda loogu wareejiyay. hadda gabadhaasi waxa ay ku caymatay iyada oo dabaq saaran oo ay soo miirsatay, kadibna waa ay fakatay oo hoos ayay u degtay. Liido iyada oo joogta oo jiha wareersan ayaa waalidiin kale oo Soomaaliyeed halkaasi ka soo. Sihaam muuqaal ahaan waa caafimaad qabtaa, balse aamusnaan iyo mahsanaan fara badan ayaa lagu arkay, taasoo loo aanaynayo ama loo sababeynayo markii la afduubayay suntii lagu caburiyay in ay dhibaatadaas u geysatay Sihaam. waxay arintani soo socotaba waxaa saakay lagu qabtay magaalada Afgooye qayb ka mid ah shabakadii tuugada ahayd ee arxan laawayaasha iyo damiir laawayaasha ahaa. Afgooye ayaa lagu hayaa gacanta dawladda ayayna ku jiraan. labadan nin ee inay muuqata waxay ka mid ahaayeen shabakadii dadka ama caruurta Muqdisho xadi jirtay. waxay sheegeen markii la wareystay in $500 ay ku qaadanayeen halkii qof.
shabakadooda ayay sheegeen inay xarun u tahay magaalada Jowhar. saaka ayay ciidamada amnigu degmada Afgooye ay gacanta ku dhigeen ayaga oo la baxsanaya gabar yar oo maalin ka hor lagu baafiyay baraha bulshada. bal markaana aynu fiirino muuqaal ay duubtay kaamirada CCda ee ku saabsan cunug yar ee uu doonayo in meesha maraya ama wadada maraya in uu xado. ninkani halkan ayuu ka soo baxayaa, wiilkaas yarka ah ee xagga fadhiya ayuu doonayaa in uu xado. waa uu isboojeenayaa, si geesgees ah ayuu u fiirinayaa, luuqyada ayuu iska fiirshay dad ku soo socda in ay jiraan bal wax dad ah oo halka ka agdhow. cunuga yarka ahaa ilaa wax kalama ogane waa uu iska baxay oo waxa uu tagay wadadii dhexdeeda. waa uu iska ciyaarayaa, ninkiina waxa uu ku boojeysan yahay oo ku mashquulsan yahay sidii uu cunugan ama farsamadii uu adeegsan lahaa si uu u xado. gadaal ayuu u soo laabtay, geesaha ayuu fiirinayaa, shaki fara badan ayaa ku jira maadaama ay meeshu xaafad tahay. wuxuu isku dayayaa inuu cunugaasi meeshaas sidaas u mashquulka badan ama xaafadaas isku raranta ah inuu si nabad ah ku qaato cunugaasi yar ee halkaasi ku ciyaaraya. kor ayuu fiirshay, dabaqyada wax saaran ayuu eegay, waa uu arki waayey. hawshiisii dhagarta ayuu iska sii watay, mashquulkii ama sidii uu ku xadi lahaa ayuu qorshaheedii weli ku guda jiraa. cunugii yaraa waa uu iska daba kacay, nakeen ayuu yiri. waa uu daba kacay, waa iska raacay. cunugu waa uu iska istaagay, go'aan ayuu qaatay, ilaah baa badbaadinayay. ilmuhu kala faham badane cunugu waa uu shakiyay, ushiisii inta qaata ayuu soo cararay. waa uu shaki, waxa uu ka baqay ninkan ismabadaraya ama ismoogeysiinaya xaaladda jirta. ninkii weli ma quusan, waa uu taagan yahay oo weli go'aankiisii kama uusan tanaasulin. waxa uu il ka fahmay cunuga yari in uu boojeysan yahay oo uu iska socdo. eeye ayaa meesha soo maray, cunugii ilaa waa iska ciyaarayaa, eeyihii ayuu ku ciyaarayaa. xaalad jirta moog waaye cunugani yar. ninkiina meeshii ayuu taagan yahay oo qorshihiisii dhagarta ayuu weli wadaa. ha iska ciyaaree, kor waxaa ka fiirsanaya dadka deriska ah oo la socda xaaladda meesha ka socota. CCduna waa ay duubaysaa. waxaa socda arrin aan caadi ahayn. dadkii deriska ahaa waxay u yeereen odagii dhalay wiilkani. odagii ama aabbihii dhalay wiilkani ayaa waxa uu ka soo degayaa dabaqa qaybtiisa sare. wiilka yari waxaa ku qaylinaya dadkii deriska ahaa oo kor u fiirshay, waa uu cararay, gudaha ayuu galay. haddaba maxaa dhici doona meeshani? ninkii weli ma uusan quusan oo ma uusan cararin, weli dhagartiisii ayuu ku mashquulsan yahay. aabbihii wiilkii dhalay waa uu soo baxay, ninkii ayuu fiirshay, dadkii kore ayuu la hadlayaa oo telefoon kula hadlayaa oo xaaladda jirta u sharaxaya. waa ay u tilmaameen, weli tuugii ma cararin oo waa ka xaggaa taagan. waa laisku sheegay, deriskii ayaa isku soo baxay, rag meesha marayay ayuu la kulmay. waa kana odagii wiilka dhalay ma uusan quusan, shaki ayaa weli ku jira. waa uu daba kacay, hadda ayaa la soo qabanayaa tuugii inuu xada rabay wiilkani yarka ah. waa lagu kala orday, waa kuwanayd waa soo degeen deriskii, waa la hayaa, gacanta ayaa lagu qabtay. maba ka qasnaba, waaba nin dhagartiisi ku indha adag. ugu dambayn waa kaasi halkaa lagu garaacayo, waa la jiijiidayaa. sidaas ayuuna qorshihiisii ku fashilmay tuugaasi, oo waxaa fashiliyey dadkii deriska ahaa ee kor ka eeganayay xaaladda meesha ka socota. xilligan lagu jiro xaaladda Soomaaliya waxay maraysaa meeshii ugu khatarta badneed. waalidiinta Soomaaliyeed waxaa laga rabaa in ay caruurtooda ay kontaroolaan, ka warqabaan, la socdaan xaaladooda. waa ay dhammaatay sheekadii caruurtu waxay la ciyaarayaan deriska. guryaha hortooda ayaa laga afduubanayaa. sun ayaa afka iyo sanka iyo meel walboo duleesho looga shubaya si loo qofkaasi daraandarayo ama loo suuxiyo. dhagarta dadkani arxanlaawayaasha ahi waa ay socotaa. waxaan rajeynayaa in lasoo afjari doono insha Allah. saaxiibayaal, barnaamijka la gareeya, sheer gareeya insha Allah. barnaamijyo kale oo xiiso leh ayaa noo ballan ah.